السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا آد باد سلامنتهين إن شاء الله تعالى وحين كأهل دونا فيديو غنان مانتا تطبع أسباب أو كاقادين علمية قضبك كوبات وحوي الكبر وكبر بدن وقفك أو إسكو أركا إنو إساو دادك وردن كسريو قفك أو إسكو أركا دادك أو وحلا براني إنو إساو كوضا سريو أو أركا أصحابتي سيئنت أو وحلا براني نيكو سيئان كبر كاسي haddii laga arko yacni ma baranaysid cilmiga waxaad baranayso waad ku daalaysaa wax maxaynaad ka xasilinaysaa ma jiro waa qodobka labaad kathratul jadal muran badan oo duriyamaya had iyo jeer oonan aamusayn qof hadduu muran badan yahay qofkaasina cilmi way kala tageen ha ogaado qodobka saddexaad cadamul amali bil ilm qofka oo ku amal fali waayo cilmigii uu baranayo ama cilmigii uu bartay haduu ku amal fali waayo oonan waxba uu ka khanjileyn oo waxan baa cilmiga baratay waxan ka waxba cilmigu ka joojinayn qofkaasina cilmi way kala tageen qodobka afaraad su'ul insaaf dhagiiso xumi qofka oo marka uu dugsiga ama meesha goobta waxbarashada uu joogo si fiican waxba u dhagiisanayn oonan u dhag raacinayn macalinka kaasina cilmi way kala tageen qodobka shanaad katmuhu wa adamu nashrihi qofka oo wixii uu bartay uu qariya waxa uu bartay oo soo faa'iiday oo bulshada u soo bandhigin oo qariya oo isaga oo ku koobnaata kaasina cilmi way kala tageen qodobka lixaad adamul hifdh wa tikrar isagoo qofku xifdiyeen oonan ku celinayn muraajaco ku sameeyeen wixii uu soo bartay qofka haduu inta sameyn waayo oo wuxuu soo bartay dib ugu celin waayo mu xiftii waayo kaasina wuxuu ka xasilinay cilmiga ma jiro qodobka u dambeeya waa musaahabatul kusal wal ashaab khamilin qofka oo la saaxiibo dadka wahsadayaasha ah dadka qarsoon ay hooseeya iyo dadka hamigoogu liito qofku haduu la saaxiibo kuwaasina iyagoo kale uu noqonaya oo wuxuu cilmi ka soo xasilinay ma jirto inta ayaynu ku soo koobaynay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.